Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka baryahan waxaa noo socday koorsadeeni IoT waxaynu maraynaa cashirkii shanaad maanta waxaan rabnaa inaan sharaxno cashirkii shanaad daraad waxaynu soo sharaxnay cashirkan oo ahaa Bezier iyo nal oo hal mar wada shaqeynaya so si aada ugu wareerin markasta waa inaa abuuratid new circuit waa inaa samaysid marka fingercardkaada hadda meesha kore ku dhufo fingercard ku dhufo then markuu ku geeyo dashboardka markuu geeyo keliya meesha create ku dhufo circuit dooro maanta cashirkeena sida muuqaal ka soo aragtay waa 3 nal oo isla shaqeynayso oo wada daarmayso oo wada damayso so marka koowaad waxaa u baahan tahay Arduino inaad soo qaadatid then waxaa u baahan tahay board so 3 nal aa u baahannahay soo maaha green red iyo yellow so nalka saa u bedeshid hadda hal nal aa haystaa nal kale soo qaad nalkaas saa u bedelo waa inaa meeshan ku dhuftaa meeshana macnaa bunch of nalal badanaa ku jiraan meeshaas waxaa ka doorataa green waxaa ka doorataa yellow midkuu rabo ku noqonaa waxaa ka doorataa orange mid kaarita ka dooran kartaa haddana green ii door mid kale ii soo qabo waxaa iga dhigtaa yellow iga dhig so 3 nal waxay u baahan yihiin 3 resistor ay u baahan yihiin mid walba resistor oo inuu boardka dab ka difaaco loogu talagalay so resistorka hadda qaybta kore waa isticmaali kartaa qaybta hoosena waa isticmaali kartaa hadba waxay ku xiran tahay hadhow fiilooyinkan haddaa inta kaga rakibo Arduinaha qaybta kore aa isticmaalaa haddaa hoos kaga rakiban waxaa isticmaalaa qaybta hoose hadda qaybta hoose laynoo geey waxaa u baahanahay sorry waxaa u baahanahay nalkan soo qaad nalkanna soo qaad so waxaa soo qaadaa mid walba resistorkiisa soo qaad ku aadi godkan oo lugta gaaban ku aadi rotate ku sameey then waa kaas kana soo qaad rotation ku sameey kana soo qaad rotation ku sameey okay meesha markaa keentid waxaa u baahan tahay Arduinaada inaad boardka dab siisid qaybtan GND-ga waxaa ku rakibtaa qaybta minuska ah qaybta 5 voltage-kana waxaa ku rakibtaa qaybta positive-ka hadda fiilooyinkan waa kala duwi kartaa kana kalarada ka dhigi kartaa kaasna yellow marka fiilada kalarkeeda nooca rabtaa ka dooran kartaa so marka qaybtan oo resistorka intaanoo gudaha ka isticmaali kartaa nalkan si dab u helo lugta gaaban waxaa ku xirtaa qaybtaas oo escape haddaa dhaho inta waxaa loo yaqaanaa anode aa loo yaqaanaa positive waay intana cathode aa loo yaqaanaa negative waay negativekan waxaa ku xirtaa qaybta boardka negativeka ah so symbol negativeka ku rakib qaybta positivekana waxaa u doornaa green so greenka waxaa u doortaa fiiladan waxaa kaga xirtaa Arduinaha kor xataa waa ka jiidi kartaa okay Arduinaha qaybta okay fiilada nalka guduudan iyadana waxaa u dooraynaa nal fiila guduudna control 3 okay hadda waxaa ii doortaa green ii door red ii door red si hadhow u ogaado fiiladan inta ay ka socoto iyo meesha ay ku socoto so symbol nambarka 6aad intaa rabtid waa ku rakiban kartaa adiga waxaa ii doortaa kabacdi orange hooska shanaad so marka waxaa imaataa koodkaada imow qaybtan textiga waxaa ka doorataa blog maana text ka dooro continue dheh so inta marka kuu sameeyo waxaa u baahan tahay 3 declaration aa u baahan tahay waa int redled oo ku rakiban booska 6aad waxaa u baahan tahay greenled oo ku rakiban booska 7aad waxaa kaloo u baahan tahay yellow led int yellow led oo ku rakiban booska 5aad so marka
meeshan ayadana waxaa ku beddeli doontaa red led waana badin doontaa. Yellow led. So meeshan waxaa imaataa digital redka ayadana 3 looga baahan yahay maadaama 3na la haysano 3daba hal mar ay wada daarmayaan second bacdi way wada damayaan. So inta hal mar waxaa dhahdaa red led C 3 في yellow led yellow led hal mar ay wada damayaan wada damitaanka inta la soo koobi karay control C low so start simulation deh. Okay. hal mar ay wada ifayaan hal mar ay wada damayaan. So isla wada shaqeynayaan. Second bacdi way wada shidmayaan second bacdina way wada damayaan. So intaas waa muuqaalka. Hadduu muuqaalkan wax kugu soo kordhiyay fadlan channelka noo subscribe garee oo ku mahadsantahay daawashadaada.